ugu dambeyn aaskiisa ayaa dad badan ay ka soo qayb galeen. Dr. Sakariya Cabdi oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo aana qabiilna loo dilay. waxaa soo buux dhaafiyay ehelada iyo asxaabtiisa iyo sidoo kale bahda caafimaadka oo dhan. Dr. Sakariya Cabdi waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo shakhsiyad wanaagsan leh, degan, dabeecadna Alle ku beeray. waxa uu shaqeynaya dal iyo dadkiisa, mudnaa xilli in loo shaqeeyo lana garab istaago. balse 3 sano ka hor ayuu Dr. Sakariya Cabdi bartiisa page-ka waxa uu ku soo qoray wiil kale oo aad uga damqaday isla markaana lagu dilay magaalada Gaalkacyo. xalay asiga ayaa lagu dhex dilay goobtiisa ganacsiga xilli uu ku jiray isbitaalkiisa ayaa lagu dhex toogtay, weliba waxaa loo dilay aana qabiil sida wararka ay sheegayaan. inkastoo kaamirada qarsoon ee CCTV ay duubtay dadkii dilka geystay oo gaaraya 3 qofood isla markaana muuqaaladooda social media ay qabsadeen, balse Allaha u naxariistee Dr. Sakariya Cabdi aaskiisa meel la kala istaaga ayaa la waayay maadaama uu ahaa shakhsi dadnimadu ay ku wanaagsan tahay isla markaana jecel dal iyo dadkiisa xilli uu mudnaa inuu u shaqeeyo dalkiisa una jeclaa muddo badan u shaqeynta dadkiisa. Dr. wanaagsana ayaa lagu dhex dilay magaalada Gaalkacyo, aana qabiil ayaase loo dilay. Dr. Sakariya Cabdi oo ka mid ahaa dhalinyarada dhaqaatiirta ay u soo bixisay dalka iyo dadka. ugu dambeyn aaskiisa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin badan iyo sidoo kale bahda caafimaadka, iyadoo guud ahaanba aad loo soo buux dhaafiyay halka lagu aasayay ee magaalada Gaalkacyo banaankeeda. Allaha u naxariistay Dr. Sakariya, fadlan dhamaanteena nagu duceyna bartamaha muuqaalkan inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qabriga u waasiciyo, jannatul firdawsna ugu bishaareeyo. Dr. Sakariya Cabdi oo gacanka xaq daran ee ku dishay bartamaha ganacsigiisa. walaal Allahna ku naxariisto. Allah ayaan kaaga baryaa in jannatul firdawsa kuugu bishaareeyo. naf kasta ayaa dhimanayso, maalintiisa iyo daqiiqadiisa ayaysa ku ekeed. Dr. Sakariya Cabdi, Rabbi ha u raxmade.